halkan waa teendhada Afisiyoni waxaana hadda shir ugu socda madaxda dawlad goboleedyada dalka gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo asiga hore u ilaamiyay shirkan inay maanta isugu yimaadaan shirka ayaa waxaa lagu balansanay 19 ee khamiista ku beegneed iyaduna dib u dhac ku dhacay waxaa maanta taariikhda ku beeganta 22 ee isugu yimaaday teendhada Afisiyoni ee magaalada Muqdisho waxaa ka qayb galay madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabelle Mudane Cali Gudlaabe Xuseen shirka ayaa waxaa loogu hadli doonaa arrimaha doorashooyinka dalka iyaduna maamulada qaar ee ka dhaceen doorashada xildhibaanada aqalka sare wixii ku soo kordha shirka hadda u socda teendhada Afisiyoni madaxda dawlad goboleedyada dalka gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ra'iisul wasaaraha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan Xusni Maxamed Axmed Hirshabelle TV Afisiyoni